nabadgelyo aad baan idin salaamayaa dhammaantiin sharafi korkiina ha ahaato xigmaduhu rabbi waxa uu ugu deeqaa qof walba oo cilmi iyo garaad u saaxiib ah xigmadaha waxaad arki kartaa inay u sameeyeen yihiin dadka muslimiinta iyo gaalada qof walba waxa uu ka hadlaa inta garaadkiisu iyo maankiisu ay xisaabinayaan oo kaliya isagu taariikhdiisa aad baynu u garanaynaa haddaad rabto inaad wax ka ogaato isagu waa Jack Ma waxaynu uga hadalnay faaladii ka horeysay waadna booqan kartaa barteena YouTube-ka si aad wax uga ogaato aadna ku dareento isbedel qurxoon waan hubaa in noloshiisa iyo dhibku soo maray isbedel aad ku dareemi doonto adiguna nin adag aad ku noqon doonto dhibkaasi uu soo maray caawa waxaan idin wadaa xigmadihii laga soo guuriyay cabqariga reer China ee Jack Ma sababtoo ah xigmaduhu way kala qurux badan yihiin markaad dhacdo dhab ah ama qiso dhab ah aad wajahayso xigmadana aad ka samaynayso hab ahaato qiso adiga kugu dhacday way ka qurux badan tahay hadal la iska dhahay isagu waa Jack Ma ku soo dhawaada xigmada koobaad haddaad rabto inaad guulaysato haraadinin dadka guulaystayaasha siday u guulaysteen balse raadi qaladaadkoodii iyo caqabadihii soo wajahay siday u maareeyeen adiguna ka bara cashir isagu waxa uu leeyahay dadka guulaystayaasha haddaad raadiso siday ku guulaysteen wax micnaha ma samaynayso laakiin waxa micnaha samaynaya waxa weeye qaladka ay sameeyeen sida ay ku xaliyeen caqabadihii ay la soo kulmeen miyay niyad jabeen taas ayaa cashir ku noqon kartaa balse micno ma samaynayso waan guulaystay isla talaabadii aan ku guulaystay inaan kuu sheego balse waxa micnaha samaynaya waxa weeye inaan kula wadaago dhibka aan soo arkay adiguna isbedel aad ku dareento barina aad iska ilaaliso dhibkaasi xigmada labaad 30% dadka kuma aaminsanaan doonaan sidaa daraadeed ha ka dhigin shaqaalaha kuwa adiga kuu shaqeeya ee ka dhig kuwa hadafka sare ee la leeyahay u shaqeeya gacmo wada jir bay wax ku gooyaan xigmada saddexaad haddii aadan niyad jabin oo aadan isdhiibin wali waxaad haysataa jaanis sababtoo ah isdhiibiddu waa guuldarada ugu xun ee qofka ku dhacda haddii aan nahay koox isku xiran kuwaasoo garanaya wax ay qabanayaan mid inaga mid ahi waxa uu la dagaalami karaa 10 qofood oo inaga soo horjeeda gacmana wadajir bay wax ku gooyaan dhib ma lahan haddii aan guuldaraystay ahmiyadda waa inaan ku baasay aragtideyda haddii aan guulaysan xitaa qof iga mid ahi ayaa guulaysanaya haddii macaamiishaadu ku jeclaadaan dawladda waajib bay ku noqon doontaa inay ku jeclaato oo ay ku ixtiraamto inta aad nooshahay isku day shay si adag u shaqeey isku day inaad bedesho shaygaas ma jiri doonaan wax xumaanaya shayga ugu wanaagsan ee uu qof lahaan karo waa in uu leeyahay samir iyo dulqaad ma doonayo dadka inay iga helaan ama ay jeclaadaan balse waxaan doonayaa qof walba inuu i tixgeliyo jooji cabashada hawl qabo fursadda iyada waqtigeeda ku imaan doontaa xigmada 11 noloshu maanta way adkaan doontaa barina way xumaan doontaa balse maalinta bari ka dambaysa waxay noqon doontaa tan ugu qurxoon ee aynu doonaynay fursaduhu waxay yaalaan gadaasha caqabadaha fursaduhuna ma heli doono qof aanan u dulqaadan caqabadaha u dulqaado caqabad walba si aad fursado u hesho xigmada 13 haddii aad rabto inaad guulaysato qarniga 21aad waa inaad tixgelisaa dadka lana saaxiib dadka ka khibradda iyo hawsha badan markaas waad guulaysan doontaa xigmada 14 dadka aad u baahan tahay waa kuwa ku habboon noloshaada balse maaha kuwa ugu khatarsan ee agtaada jooga xigmada 15 noqo qof caaqil ah xugmin kara fursadaha imaan doona kana faa'iideysan kara waan malaynayaa in xigmadahani si gaar aad u qoran doonto aadna si gaara isha ugu hayn doonto sababtoo xigmaduhu kala macaan kalena murti fiican isagu waa nin soo arkay nolosha dhibkeeda fara badan soo arkay dhib iyo saxariir soo arkay wax walba oo bini'aadan dhibi kara niyad jab walba oo bini'aadan soo gaari kara markii aan su'aal idinka weydiiyay videogii hore qof walba waxa uu yiri waan isdili lahaa
waan iscadaabi lahaa. qof walba aragti buu ka dhiibtay, aragtidaasoo xugminaysa in qofku isdhiibi lahaa, balse isagu dhibkaad aragtay oo aynu kasoo sheekaynay buu arkay. welina waa cabqari dhab ah, waa nin wax ka yaqaana bini'aadanimada, waa nin u gurmada dadka, deeqbixiye caalami ah, nin maanta dunida aad ugu guulaystay. hadday jiraan gaalo guulaystay, isagu waa gaalkii ugu weynaa ee guulaystay dhabtii. sababtoo anagu ma xugminayno qofka muslimnimadiisa iyo gaalnimadiisa, balse waxaynu doonayno waa manhajka aynu u socono oo ah sheeko guuleyd, sheeko aynu wax ka baranayno. sababtoo rabbiga khaaliq waxa uu quraankiisa ku leeyahay faqsusil qasasa lacallahum yatafakkaruun. qisooyinkuna quraanka waxaynu arkaynaa 3 meeloodba meel inay tahay qisooyin, ama 3 meelood qayb ka mid ah in lagu tiriyo inay yihiin qisooyin. qisooyinkana maahan oo keliya qisooyin muslimiinta oo keliya looga sheekeynayo, ee mararka qaar waxaad arkaysaa kuwa gaalo soo galaya. annaguna waxaynu rabnaa ama manhajka aynu u socono, wadada aynu u duulayno waxay tahay inaynu wax uun ka faa'iidaysano, taariikh ahaan, cilmi ahaan, dhiiranaan ahaan, sheeko ahaan, dhacdooyinkana kala qurux badan, kala macaan oo kala murti fiican. qiso dhacday oo dhab ah oo la hubo way ka macaan tahay qiso lasoo dhoodhoobay. isagu waa cabqari dhab ah, kumana gamban doono mar dambo, noloshiisana waa rajaynayaa inaad wax uun ka faa'iiday. shayga ugu weyn ee aan maanta dhihi karo Jack Ma wuu ku guulaystayna waa in uusan isdhiibin. marnaba ha isdhiibin, marnaba ha niyad jabin. noloshaada adigaa leh, maanta adigaa dooran kara. la tilmaansada inaad noqoto, ama inaad noqoto ka meel walba iska yaalyaala, wax raqiis ah noqday, wax aan la tixgelin noqday, iyo in aad noqoto mid marka uu soo galo basalaan loo saaro oo la yiraahdo isagii baa yimid, cabqarigii dhabta ahaa ee Soomaaliya ka socday baa yimid, ama la dhaho gabadhii quruxda badneyd ee adaabta lahayd ee la tixgelin jiray baa timid, ee aqoonta badneyd. adigaa kala dooran kara labadaas. waa qof walba decision buu leeyahay, decision-kaagana ku xirnaan doontaa sida dhabta ah. kan guulaystay muxuu u guulaystaa, kan guuldaraystayna u guuldaraystaa. sababtoo qof walba laba doorashaa la kala siiyey. kan guulaystay wado saxan oo toosan buu qaatay, he never give up, marnaba muusan isdhiibin. laakiin kan guuldaraystay wuu isdhiibay, muusan dadaalin, juhdi muusan bixin. adiguna goortaa dadaal iyo juhdi bixiso ayaad guusha wadadeeda haysaa. haddaad Facebook iyo meelaha socsocotana dadku waad ka hooseyn doontaa. qof walbaahina adduun iyo aakhiro waxa lagu xushmayn doonaa waa inta uu wax qabtay, inta uu dadaalay. haddii maanta bini'aadanka caadiga ee nool iska socda, wax barta iska socda, haddaad la mid noqoto, dadkoo dhan waxaasi way sameeyaan. laakiin raadso waxaad dadka uga duwan tahay, ka duwanaaw dadka kale. insha raxmaan waxaan idiin rajaynayaa farxadda noocyadeeda kala duwan. aad baan idiin salaamayaa. sharafi korkiina ha ahaato.